gabadhihiinaan maanta boosaaso fadhiya kuwa xamar jooga kuwa hargeysa jooga aan dhammaanteen ka wada midna ummaddeena Soomaaliyeed waxay hamuum u qabtaa dhalinyaro han leh oo aaminsan in ay ummadaani ka saaraan dhibkan ay ku jiraan dhammaantiin dugsiyo sare ka baxdeen dhammaantiin SYL oo kulli jibaare baa tidin laakiin waxa jirta waxay tahay waxaynu aqoonsan inaynu leenahay talentiga oo aynu bedeli karayna bulshada kobcintiisaynu u halno waa inaan akhriska iyo qoraalka xoog saarnaa arinta akhrinta quraanku ayadu suurada ugu horeyso dhigtay waxa iqra akhrin kalimada cilmina 878 quraanku soo laabanaysa muhiimada uu quraanku siiyay bay sheegaysaa xilligii badar markii la galay dagaalkii rasuulku sallallahu alayhi wasallam xabiis badan laga soo qabtay rasuulku wuxuu cafiyay inta wax qorida bari karaysa oo wuxuu yiri rigiinaan inta wax qori ka dha waxa rabaa saxaabada inay bartaan Sayyid ibn Thabit wuxuu kamid ahaa qoraalka ka bartay oo maanta aynu garanayno halka uu gaarsiiyay hadaba maxaa loo akhrinaya marka aan akhrinayno maxaynu raadinaynaa inaynu isweydiino asal waa afar wax baynu raadinaynaa markaynu wax akhrinayno waxaynu wax u akhrinaynaa in aynu wax ogaano curiosity hayman been baan nahay waxa aynu ugu jirtay inaan wax ogaano cilmi fikir baan maqlay in xiraafiya oo khaldan fikirka waxaan rabaa inaan buug ka akhriyo ama internetka aan tago oo wax ku ogaado si aan u saxo fikirka khaldan waxaan kaloo wax loo qoraa wax loo akhriyaa in aad noqotid qof saameyn yeesha waxaan rabnaa marka inay dhaxal ka tagno jiilka soo socda ay akhrinayaan annagu waxaan uga doonaa dhalinyarada oo fadliga Ilaahay siiyay ana wax barateen oo tihiin aqoon-yahanku marka aqoon-yahan waxa lagu noqdaa in wax la akhriyo akhriska la badiyo taa waan dardaarmayaa taas waxay ka mid tahay kaalinta koobaad hadaba inaynu akhrinaa books badan yeelana article la akhrinaa fiidiyo duubana arrin baan rabaa inaan xuso caawa madasha marka imaanaysan social media wala soo dhigay arrinta marka wax akhrisid inaan qoraal la abuurtid oo bulshadaani aad xoog u saartid positivity-ga bulshadana waxaan ugu badan negativity-ga ina halka u adeegsatid positive ah oo qoraalada Facebook aad gelinaysan oo aan qoraal adigu laftaagu bal mawaadiic yar yar oo simple ah qaadanaysid sida xoog saaris qodobka labaad aan aaminsanahay dhalinyaradu awoodahooda inay ku soo saari karaan waxa kamid ah arinta samafalka iyo waxqabadka Ilaahay baa ku dhaarshay raggeena halkaan fadhiyo anugu waan kamid ahay waxaan aad u amaanayaa in la joogo tigay arinta samafalka dhalinyaradu arrimaha ay ku soo bixi karayaan hooyo Soomaaliyeed iyo aabo Soomaaliyeed baa haraad u dhimanay hooyo Soomaaliyeed iyo caruur Soomaaliyeed baa haraad u dhimanaya arinta samafalka waa arrimaha volunteerka ah oo dhalinyaradu kaalintoodii ay ku muujin karayaan arrimaha kale oo cajiibka waxa weeyaan hadaa ka awoodo weeyday ina walaalaha qaxootiga iyo kaamamka waa Soomaalidu inteena guryaha haysata bas aan u garanayna waxa Soomaaliya kabaha ka ku baalashay inaad maalin ama laba maalin waqtiga ka midaysid oo abartid sida loo akhriyo waxa kaalintaada ku muujin kartaa samafalka hooyada suuqa miyaayada ku iibinaysa inaad sidii wax loo xisaabiyo bartid waxbay kala rogaysaa ganacsi bay kala rogaysaa laakiin ma taqaan si wax loo xisaabiyo waxa kale oo muhiim ah oo tusaale noogu filan in awoodda samafalka adeegsano oo aynu qaban karayno waxa dhalinyarada hadda halkaan fadhida ay qaban karayso arrin kale oo aan rabay inaan taabto qodobka kale rabay inaan u gudbo waxay tahay hal abuurka iyo fikradaha ganacsiga waxaan dareensanahay dhalinyaradu kaalin buuxda waxay ka qaadan karayaan miskax tuujis inay sameeyaan shaqaalanimadu anigu waxaan ka aaminsanahay inay tahay slave adoonnimo maxay u tahay de waxa tahay in la amro waqti soo gala bil mishaar qaata laakiin ka waran hadaynu ku xirino fikirka dhamaanteen shaqaalo wadanka dhalinyarada markaan wareysto waxa aad ka cabataan waxa u badan shaqo ma jirto shaqo ma leh ka waran hadaynu ka fikirno inaynu anagu hal abuur yeelano oo fikradaha ay adduunkaani ku dhisan yahay dawlad kaliya shaqo looma raadsaday privatization-ka in ganacsiyo la abuuro dadku Soomaaliya inta hadda hantida haysato dawladda lagama helin ama Puntland government ma aha waa dad isku tagay oo hoos ka soo bilaabo asaaska sandaqada Allah ka dhigay ka soo bilaabo ganacsi abuur aan waxaan taageeraya oo runtii ay jaamacadaha tagaan oo traininada qaataan oo qaabkeeba fikrad ganacsi u abuuri karaya ganacsigu sabir buu u baahan yahay dhalinyaradeena waxaan dareemayaa arinta markaan ka hadlo waxaan rabnaa maalin taajir inay noqono hal mar waxaan rabnaa inaan dhalinyarada dhamaantiin madaxweynayaal inay noqono macquul ma
waxa macquul ah inaynu hoos ka soo bilowno sida caadiga ay sheegayso dulqaad u yeelanno u qadno u oonno u horfaadno si aynu hamida iyo dreamka aan leenahay gaarno ingiriisku wuxuu yiraahdaa success doesn't come overnight najaxu kuma yimaado hal habeen iskama yimaado hameeno badan oo u dhafartid inaad sabir yeelataa ma dardaarmaya inaad mushkilada waddanka haysta loo samro oo runtii kaalintaadii aa muujisid oo ah inaad 10 sano ganacsi abuurtay ka bacdi baa waxa kaalintii waddanka u gudbi karayna haddii aadan hal buugba akhrin karaynin haddii aadan hal habeen meel fariisan karin sabirka aad lahayn haddii maxaa kaalintaadii bulshada aad bartaa adiga aan wali isdhisin arinta fikradaha ganacsigana waan dardaarmaya dhalinyaradu inay xoog saaraan adduunku maanta waxa la marayaa uma baahni jaamacad kaliya inaan dhigto waxaan u baahanahay inaan internet ka faa'iideysto online any field wad baari ka dhaawaxna waa ka ogaan karaysa labada qodob samafalka iyo hal abuurka mid muhiim ah waxaan rabaa inaan xoog saaro isdhaxgalka dhalinyarada iyo midnimada eegay halkan waxa ina dhigay waa qabyaalada runta hadeen isku sheegno hadaan nahay dhalinyaro odayaal Soomaaliya halka waxa dhigay waa qabyaalada waxay rabnaa dhalinyaradena halka caawa iskugu timid inaynu please sameeyno in ka xirowno fikirka xun oo odayaashii hore ay naga dhaadhiciyeen odayaal fiican oo nabadoona waa jiraan qaar laakiin khalad naga dhaadhiciya jireen wiilka xamar caawa halka fadhiya ee iskuulka dhiganaya ama jaamacadda dhiganaya ka hargeysa joogo waa walaalka quraanku wuxuu leeyahay innamal mu'minuuna ikhwa dhalinyaradu inay boosas ayagoo joogay saddex galaan madasha hal door aad baan u amaanaya fikradda madasha hal door oo kale waa in dhalinyaradu isku timaada fagaara ka hadalka noocan la yeeshaa aynu engagement is sameynaa waxaan kaloo amaanayaa inay sportiga ka qayb qaadataan oo team sameysaan oo isdhex gashaan cadowgiina wuxuu ka faa'iideysanayaa intaynu kala jabanna dal hadaa rabtid inaad eegtid waxaa la eegaa dhalinyaradiis inta ay yihiin hadday dhalinyarada aynu ku mashquulsan lahaa laba qabyaalad iyo qaad daraaga noocu doon ha ahaadee ma horumarayno waxaan dardaarmayaa marka dhalinyaradu inay cadow badan bay Soomaaliya leedahay haddaynu sidaa u hurdnana waxaan aaminsanahay in laga qaadayo waddankan dhamaantiis waxaan dardaarmayaa dhalinyaradu inay midnimada xoog saaraan inaynu midowno dhalinyarada Soomaaliyeed inaynu safarno inaad safrin dhaayamale ee Soomaaliya tirada inaadan wali ku xirnaa gurigii hooyo kugu dhashay waa hore sagaashameeyadii waxba dhacay sagaashameeyadii wixii dhacay fikirka inuu kugu jiro oo runtii ka dhaqaaqi laada isxore nin miskaxda laga haysta noqon nin dhalinyaro ah tahay isxore oo safar oo meelaha Soomaalidu degta tag oo ogow dadkaan inay ku sugayaan adiga ay ku joogaan waxaan dardaarmayaa dhalinyaradu midnimada inay xoog saaraan aqliga gumaystaha ee ah in waddankaani uusan waxba oolin laga dhaadhiciyay oo markii ay dhalinyaradu qaaradda Afrika waxa soo koraya dhalinyarada qaaradahan galbeedkuna way duqoobayaan si ay u helaan dad u shaqeeya oo suuliyada iyo meelaha ay u nadiifiyaan inay naga dhaadhiciyeen inay paradise tahay janno taalo qaar badan baa badda ku dhamaaday arrintaas waxaan dardaarmayaa inaynu iska ilaalino midowno waxaan aaminsanahay inay dalkan wax ka bedeli karno taa markaan u soo dhaadhaco taa waxaan dhahayaa unity is the mother of all development inaynu midowno dhalinyaro ahaan waxa weeyaan waa horumarka qodobka kale aan u dhaadhacaya waxay tahay aan rabaa inaan aad u iftiimiyo caawa dhalinyaradu waxaa la yiraahdaa waa future leaders anu asxaabteedana waa iga dambeyn doonaa waan diiday waxaan idhaahdaa maanta bay dhalinyaradu hoggaanka siyaasadda ka qayb gali karayaan hoggaanka waa inaynu ka qayb qaadanaa hoggaanka mina madaxweynaha ka bilowna dhalinyaro hadaanna war masaasa may volunteerism waa inaan ka bilownaa oo dhammaan hay'adaha dawliga aynu u tagnaa si volunteer oo qayb qaadanaa waa inaynu dhammaan xubnaha deegaanada degmooyinka aynu ka wada nimin dhammaan inaynu ka wada qayb qaadanno waa arrinta aadka ii taabanaysa oo dhalinyarada ay aad uga wareegayaan waddankana uu rabo in laga xalliyo waxa weeyaan war saraakiil ciidan inay noqonaa u baahanna waddanku meeshuu ka halaysan yahay waa halka waxaynu u baahannahay dalkan education baa barata digriyaad haysataan waxaynu u baahannahay ciidanka meeshuu ka halaysan weeye wiilasha aan la tababarin ee qaadka cunaya ee dadka qoriga habeenku qabanaya kuwa inay adigu bedeshaan oo shaatiga idin cadeeyo dadka ID weydiinay sida wadamada kale waynu sameyn karnaa laakiin haddaynu cid kale ka sugna ka waran waxaan u maleynayaa 40 sano ka bacdina halkaan intaan soo fariisanaba in ka wada hadleen inaan ciidanka ku biirnaa loo baahan yahay dawladda Soomaaliya ciidanka Puntland laga qayb qaato agaasimayaasha wasaaradaha in laga bilaabo loo baahan yahay diida fikirka oranaya inaan dhalinyaro tahay oo awood ma leeyahay jiilka saxaabada aniga kuugu bilaabay awood waa leedahay daaqadaada waxa u baahantay energy-gaas oo aqoonyahanka horeba sheegay in aad meesha saxda ah aad u adeegsatid
marka waxaan dardaarmayaa dhalinyaradu inay dalka hoggaanka iyo siyaasadaba ku keenaan waxay leedahay oraha ingiriiska you are not a failure until you blame others for your failure ma tihid qof guuldaraystay ilaa guuldarradaada aad dadka kale ku eedaysid taas dhalinyarada waan kala dardaarmaya inaad tiraahdo dowladda Soomaaliya burburtay maadaama dowladda burburtay anagu dhalinyaro aan ahayo badaan isku dhigaya taas decision adaas gaarayna isdishida waa decision eegay waxaan dardaarmaya in aad dalka hadii aan rabno dhalinyaro aan anagu ahay laftigeygu dadka hadaan rabno inaynu wax ka bedelo waa inaynu si ficiliye la nimaana cilmigi waad barateen jaamacadihii baan idinku soo dhisnay laakiin waxa asal ficiliyadii baa dhiman trainingkiina qaadatan waxaan kale u gudbayaa arinta markaan iftiimiyo gunaanadka intaan u gudbin waxaan rabaa inaan xasuusiyo awoodo badan baynu leenahay awoodahaanu haysano waxa kamid ah inaynu dad caafimaad qabanahay alxamdulillah awoodahaanu haysano waxa kamid ah inaynu dad wax xaqriyo aqoon leenahay awoodahaanu haysano waxa kamid ah inaynu hadaynu isku tagno sida uu ka sheekeynay Masar dhalinyaradii hal mar waxa weeye mudaharaaday oo hoggaan 40 sano ama 30 sano hor fadhiyay iska bedelay dhalinyarada tan waxay marka u baahan yihiin inay ururka galaan inay midoobaan inay wanaag ka shaqeeyaan ma dardaarmay in negativity-ga laga shaqeeyo qalalaasa laga shaqeeyo laakiin waxaan dardaarmayaa inaynu awood leenahay inaynu dareenno oo aan meelo badan u qaybsano dhamaanteen waxaan dardaarmayaa dhaqanka ah dhamaanteen fadhi ku dirirka yaallo oo ah dhamaanteen inaan wada nahay wada siyaasiyiin dhaqan khaldan way qofka bini'aadanka ilaahay talent uu siiyay qof wax ku fiican yahay ninba hadalka ku fiican ninba qoraalka ku fiican ninba ciidanka ku fiican ninba ganacsi ku fiican haddaba talentiga shakhsiga ilaahay heebiyada uu ku siiyay inaa xoog saartid oo halka aad abaartid maadaama TV-ga ay daawan doonaan xukuumadaha iyo ganacsatadu tala aan soo jeedinayaa jirta koow dhalinyarada Soomaaliyeed waa in laga qayb geliyaa shirarka nabadda meel kasta ay ka dhacayaan waayo aragnimadu waxayna tusaysaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay leeyihiin awoodo wax la barbar dhigayna ay lahayn xilliga hadda aynu ku jirno ay Soomaaliyeed ay dhalinyaro u baahannahay koow labo in la barbaariyo tababarada xirfadaha arinta jaamacadaha waanu ka wadnaa arinta waxaan dardaarmayaa dawladda hay'adaha dhamaantood loona abuuro fursad shaqo ay dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Puntland ee dhammaan gabar iyo wiilba loo sameeyo si ay shaqo u helaan oo baahidan shaqada aan iskaxda lagu quflay ay ka baxdo oo loo abuuro in la baadi goobo iskaashi u dhaxeeya dawladda iyo dhammaan dhalinyarada ee arinta xirfadaha ku saabsan dalku wuxuu u baahan yahay xirfado dhalinyaro xirfado leh arintan waan dardaarmayaa waxaan kaloo dardaarmayaa ganacsatada u dardaarmayaa arrimaha zakaadka ay bixinayaan in sanduuq mashruuc oo dhalinyarada loo sameeyo dhalinyarada lagu maalgelinayo si hal abuur u yeeshaan oo ganacsiyadooda fikirkooda u soo dhisaan arrimaha bangiyada way wadaan waan sii xoojinaa dhalinyaro daqiiqada ugu dambaysa waxaan ku soo koobi fadhiga inuu ka kacno dal iyo dad burburay baa ina sugaya waxaan dardaarmayaa fadhigan awoodaha ilaahay ina siiyey ee daaqaadka ah oo jiilka islaamka waa ay horumar ku gaareen dhalinyarada maqshrib ilaa maqrib gaarsiisay dhalinyaradii ma dhiman way joogaan ee awoodihii bayna dareemin awoodaha caawa waxaan u nimid maahan wax weyn idin sheegayno waxaan u nimid waxa weeyaan inaan baraarujin sameyn iyo maskax tuush isku sameyno niqaashka ka qayb qaadataan baan dardaarmayaa allah idin barakeeyo dhammaan waa salaamantiin